dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in wakiilka xilligan ee qaramada midoobe Nicholas Haysom dalkaanan laga rabin isla markaana uusan ka shaqayn karin iyadoo dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya uu ka hadlay sababta loo ereeyo wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed Axmed Tuuriyare ayaa warkan dhameystiray. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo saartay warqad ay ku sheegtay in dalka aan laga rabin uusan ka shaqayn karin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom. warka oo soo baxay 1 Janaayo oo shalay ahayd ayaa waxa lagu sheegay in go'aanku uu yimid kadib markii wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe uu ku xadgudbay hab maamuuskii xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya si bareer ahna uu u farageliyay madax bannaanida dalka. inkastoo aan warqadda lagu sharixin waxa ay faragelintu tahay haddana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa BBC Soomaaliya waxa uu sheegay in faragelintu ay tahay warqaddii uu Haysom 3 Diseembar u qoray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya. uu Soomaaliya ka shaqeeyo waxa ay ku tahay qaramada midoobe. waxaan ugu dhaliyay walaalow Mr. Haysom wuxuu dhinac maray nidaamka iyo dhaqanka diblomaasiyadeed wuxuu u dhaqmay sidii uu yahay isagu madaxa ama maamulaha dawladda Soomaaliya marka wuxuu ay ku yahay dhaqanka UN-ta wuxuuna gaf weyn ka galay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliyeed. marar badan ayuu khaladaad sameeyay oo warar uusan qofna kala tashan dawladda kala tashan uu sameeyay iyo waraan uusan hubsanin. tii ugu dambeysay waxay ahayd waraaq uu u qoray wasiirka amniga oo ula hadlayo sidii isagu uu wasiirka amnigu isaga ka talaqa. waddanka Soomaaliya waxaa mas'uul ka ah oo madax ka ah dad Soomaaliyeed iyaga go'aanka iska leh qofkii Soomaaliya ka shaqeynaya qofkan ka shaqeynaynin. marka waa loo sheegay xogeeyaha guud iyo Haysom labadaba waa loo sheegay wakiilka xogeeyaha inaan Soomaaliya laga rabin waa loo sheegay. haddaan waddanka laga rabinin persona non grata waxa weeye waddanka waa inuu isaga baxaa sida ugu dhaqso badan kama madax bannaana dawladda Soomaaliya. dalka Soomaaliya waa dal madax bannaan oo qarannimadiisa isagu iska leh sida dalalka kaleeto. anigu UN-ta ka soo shaqeeyay waana qaanaa dhaqanka UN-ta haddana wasiir arrimaha dibadda baan ahay waana qaanaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga soo u shaqeeyo. wakiilada dalalka ama ha noqdeen diblomaasiyiin dalal matalaya ama ha noqdeen kuwa UN-ta matalaya ama kuwa hay'adaha kale matalaya wixii ay tabanayaan ama ay la tahay shaqadoodu khusayso way kala hadli karaan dawladda Soomaaliya laakiinse kama ay madax bannaana umana dhaqmi karaan sidii iyagu dalka ay maamulaan. wakiilka waxa ay dawladdu sheegtay inuu dalka isaga baxo muddada uu dalka uga baxayana waxa uu wasiirku ku sheegay inta uu ka qalab aruursanayo. Nicholas Haysom oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo saaray warqad uu aad uga hadlay xarigii dawladdu ay ku xirtay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo uu sheegay in sharciga wax ka baxsan ay tahay inuu sii xirnaado wax ka badan 48 saac sida uu sharcigu qabo iyada oo aan dacwad lagu soo oogin isla markaana uu su'aalo kulul ku weydiiyay wasiirka amniga. muxuu ka dhigan yahay go'aanka dawladda Soomaaliya ay sheegtay in wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya aan laga rabin in uu waddanka ka shaqeeyo isla markaana ay dawladdu ku tilmaantay inuu dalka isaga baxo qaramada midoobayse ma laga filan karaa gadood diblomaasiyadeed? waxaa su'aalahaas ka jawaabay Professor Maxamed Muuse Mataan. saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waan arkay waana marka aad fiiriso waa waxay dawladda Soomaaliya xaq u leedahay. baaqyada caalamiga iyo heshiisyadii la galay oo conventionkii la xiriiray cilaaqaadka diblomaasiyadduna ay u fasaxayso marka persona non grata ayaa lagu yiraahdaa afka qalaad waxa la yiraahdo macnaheedu waxa weeye in qofka marka waraaqdaas loo qoray dalka laga ceyrinayo oo yahay erga persona non grata waxa weeye lama baahna qof aan loo baahnayn qofkaas macnaheeduna waxay u fasiran tahay in qofka marka mas'uuliyadda hayay ee waraaqda laga qoray dalka looga baahnayn sida daraadeedna ay tahay inuu isaga tago ay tahay oo mas'uuliyadda marka uu haayo cidda soo tirsatay dib loo fiiriyo. ma laga filan karo qaramada midoobe ma aha waddan ma aha qaramada midoobe waa meel ay dawladaha caalamku ku midoobeen waa meel furaaka ah cid gaarana lama safar karto rabitaan dawladeed iyana kuma shaqeyso ilaalin qofeedna kuma shaqeyso waxay ku shaqeysaa shuruuc iyo heshiisyaad iyo ahdiyo la galay oo loogu talagalay dawladaha caalamka oo dhan inay ku wada dhaqmaan kuna wada joogaan. Haysom
waxaa lasoo magacaabay bishii Sebtembar ee sanadkii 2018 waxa uuna ka shaqaynayaa waddanka muddo 4 bila ka sokow is-araggii markii lasoo magacaabay madaxda dalka uu la yeeshay. Waxa uu sidoo kale booqday xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Hargeysa waxa uuna la kulmay hogaankooda isaga oo u kuurgalayay khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada u dhaxeeya. Dowladda Soomaaliyana waxa ay ugu dambeyntii ka carootay su'aalo xafiiskiisa uu ka soo saaray jawaabtooduna ay ku noqotay laf dhuun gashay. wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay qabatay hoobiyaal gelinkii dambe ee shalay lagu weeraray xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim warsoosaaraheena Saaka ayaa dhammaystiraya warkan. wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in la qabtay hoobiyaal la doonayay in lagu weeraro xarunta Xalane ee Muqdisho. warkan oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee wasaaradda ayaa waxa uu qornaa sidan: ciidamada amniga oo gacanta ku soo dhigay hoobiyaal kale oo argagixisadu rabeen inay ku soo tuuraan xarunta Xalane. sawir ayaana qoraalkaasi la socday. Al-shabaab ayaa shalay waxay 7 madfac la beegsadeen xarunta Xalane oo ku taalla garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. waxaa hoobiyaashaasi ku dhaawacmay 2 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo qandaraas leh. sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuusan dalkan ka shaqay karin ayaa saacado ka hor soo saaray qoraal uu kaga hadlay hoobiyaashaasi waxaana uu ku xaqiijiyay in 2 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ay ku dhaawacmeen. wasaaradda amniga ma aysan sheegin tirada hoobiyaasha ay soo qabatay iyo haddii ciidanka amnigu soo qabteen raggii tuurayay. ciidamada militariga Soomaaliyana waxa ay saaka ku baxeen Al-shabaab iyagu qorsheynaya ama damacsanaa inay weeraro ku qaadaan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. kadib markii ciidamada dowladdu ay ka war heleen arrinkaas ayay sameeyeen inay ku baxaan tuulooyinka Al-shabaab ay isku urursanayeen. saraakiisha ciidamada xoogga ee ku baxay ayaa waxa ay sheegeen in Al-shabaab ay isku soo urursadeen tuulooyin hoostaga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay damacsanaayeen in ay ka soo qaadaan weeraro. waxaana sidoo kale dadka deegaanku ay sheegeen in ay arkeen dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab oo iyagu ku soo qulqulaya tuulooyin hoostaga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka waxa ay isku fidiyeen ilaa iyo 6 tuulo oo hoos tagta degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose si ay u baabi'iyaan Al-shabaabka isku soo urursanaya tuulooyinka hoostaga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. bilooyinkii u dambeeyay gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka kuwaas oo ay kaga saarayaan tuulooyinka ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha Al-shabaab deegaanada hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. markana Suudaan haddii aynu eegno ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha waddanka Suudaan ka dhigta ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dibadbaxyo ka dhacay gudaha waddankaasi. Yunis Durraan Cali warkan haynoo dhammaystiro. ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan ayaa banaanbaxyadii ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay waddankaas waxay ku yeesheen saameyn xoogan oo dhan waliba ah. ardayda Soomaaliyeed ee ku nool waddankaas ayaa waxaa hakad ku yimid daraasadoodii waxbarasho halka kuwa kale oo ganacsi u joogay uu hakad ku yimid ganacsigooda. qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee waddankaas u aaday waxbarasho sheegay inay saameyn xoogan ay ku yeelatay banaanbaxyada ay wadaan dadka u dhashay waddanka Suudaan oo ay uga cabanayaan qiimo kororka ku yimid iibsiga rootiga iyo saruq ku yimid qiimaha shidaalka waddanka. ardayda ayaa sidoo kale sheegay intay socdeen rabshadaha ka jira waddanka aysan wax khasaaraha ka soo gaarin Soomaalida ku nool waddanka. toddobaadyadiina dhaafay ayaa waddanka Suudaan waxaa ka dhacayay goboladiisa kala duwan banaanbaxyo waaweyn oo dadka waddanka ku nool ay uga cabanayaan qiimo kororka ku yimid rootiga iyo saruq ku yimid shidaalka waddanka. waddanka Suudaan ayaa waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah kuwa siyaabo kala duwan u jooga waddanka waxayna iskugu jiraan Soomaalida ku nool Suudaan kuwa waxbarasho u aaday halka kuwa kalena ay ganacsi u joogaan. kuwa ugu badan ee saameynta ku yeeshay rabshadaha ka jira waddanka waa kuwa ku nool caasimadda Khartoum ee waddanka Suudaan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay wadaan kulamo looga arinsanayo doorashada la filayo dhawaan inay ka qabsanto maamulka Puntland. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan eegaya.
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa durbadii bilaabay kulamo looga hadlayo doorashada maamulkaasi. xildhibaanada ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee maamulka Puntland. sidoo kale xildhibaanada cusub ee maamulkaasi qaarkood ayay la kulmeen xubnaha golaha shacabka. xildhibaan Cali Xoosh oo ka mid ah xubnaha shalay gaaray magaalada Garowe ee maamulka Puntland ayaa shacabka magaaladaasi mar uu la hadlay waxa uu sheegay in aan laga hor istaagi karin tagitaanka magaalada Garowe. waxaan aad uga xunnahay oo aan suuroobi karin oo dhaqan cusub ah oo aan la yeeli doonin in muxuu ahaa ereygaan ah wasiiradu ma imaan karaan in la yidhaahdo aad baan uga xunnahay. dabcan idinkuna yeeli maysaan. dalkana inagu waqooyigii kuuriya ma ahayn oo xirxirnayd ma ahine dalku waa dalkeennii. qof kastoo mas-uula iyo qof kastoo muwaadina inuu yimaado xaq u leeyahay. qofkii dembile dembigiisaa lagu qaadayaa. hay-adaha sharci baa jira laakiin ma imaan karo nin awood u leh ma jiro. doorashada madaxweynaha ee maamulka Puntland ayaa waxaa ka harsan 6 maalmood iyadoona tagitaanka xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee magaalada Garowe ay imaanayso maalmo kadib oo Puntland ay sheegtay in deegaanada ay ka mamnuucday mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya.